Asalaamu calaykum saaxiibayaal caawa iyo ciyaarihii Champions League lugtii labaad ee Arbacada ayaa sidan kusoo dhamaatay. Shakhtar Donetsk iyo Atlanta oo wada ciyaaray. Atlanta oo 3 ku garaacday Donetsk iyo Aston Villa iyo Bayern Munich oo iyadana 1-0 lagu garaacay, iyo Benfica iyo Atletico Madrid iyadana 4 lagu garaacay. Dynamo iyo Monaco waxay galeen ayagana barbardhac. Lille iyo Real Madrid oo wajigabax kala kulantay Lille. Liverpool iyo Bologna, Liverpool oo iyadana kusoo dhaweysatay garoonkeeda Anfield. Sidoo kale RB Leipzig iyo Juventus oo markii hore looga hormaray goolal laakiin hadda way badisay. Sidoo kale Club Brugge iyo Club Brugge oo badisay. Aston Villa caawa horta markii garoonka ay soo galeysaba oo tunnelkeeda waxay horta soo bandhigtay gurigeeda Villa Park kusoo bandhigtay. waa dhagahadal miya aheeday ma waxba ka aheeday, waa lala yaaba Aston Villa oo xitaa waxay niyad siisay in ay gamekan ay badiso. Aston Villa markaan Bayern Munich waxay ku garaacday 1-0 waxaana u dhaliyay ciyaartooygan xilli goor ay tahay, macnaha xilli fiican ayuuna gool u dhaliyay. Marka Aston Villa waxay soo qaateen sabir. Xilli horey ay Champions League ay qaadeen ayay soo bandhigeen, iyo xilligan Bayern Munichna ay ku garaaceen. Marka Bayern Munich lugtii horey iyada iyo kooxda la ciyaareysay waxay dhiibeen 9 gool ayay dhiibeen ahayd lugtii hore ee Champions League. Laakiin caawa waxay la kulantay libaaxyo kasoo baxay England ay la kulantay Villa Park oo lagu soo dhaweeyay. Marka Harry Kane xitaa qatar iska dhigay. Harry Kane waxaa la hore ahay meeshan waa meeshii lagu garaac jirooyaan camal. Marka xitaa wuxuu qasaariyay Harry Kane gool muhiim uu baasi karay oo xitaa uu dhalin karay, laakiin midaas ma u suuroodin in ay badiso Bayern Munich, waana laga adkaaday 1-0 ayaana loogu adkaaday. Kooxaha haweenka waxay u maleysaa caawa in ay ka taashay, ayaa u maleynaysaa Real Madrid xitaa waa laga adkaaday. Sidoo kale Atletico Madrid iyadana 4 ayaa lagu soo garaacay. Marka way ku dhiban yihiin sida caawa la fiiriyay oo saadaashana ay noqoto. Marka Aston Villa way ka adkaatay. Sidoo kalena macalinka weynaa Real Madrid Ancelotti ayaa wajigabax kala kulmay kooxda Lille ka socota France. Runtii waxaa lagu helay penalty oo Camavinga gacan uu ku taabtay. Marka Real Madrid caawa waxay tahay waa caawadii albaabku xiran xitaa Mbappe xitaa soo xanaaqsan ayuu uu dhanka qolka labiska ayuu ku cararay markii dhamaatay. Xawalo uu kusoo galay bedel. Marka Real Madrid caawa waa laga yaabsaday. Waxaa ka yaabsaday ilmo yaryar oo qatar cajiiban caadi ahayn ayaa ka yaabsada. Marka Real Madrid ma ahan markii hore oo ugu koowaad macnaha oo laga badinayo kulamada noocan camal. Marka waxaad u maleynaysaa Real Madrid iyo Barcelona inay ku dhiban yihiin kooxaha ka imaada France. Mar xitaa Monaco iyo Barcelona ay wada ciyaareen Champions League. Monaco oo 2 ku garaacday Barcelona, iyo caawa oo taariikh kale ay tahay kooxaha haweenka ee Spanish iidan Real Madrid oo 1-0 loo garaacay. Sidoo kalena Benfica ayaa iyadana 4 ku garaacday Atletico Madrid, xilli xitaa Angel Di Maria duqa 40 sano jirkan uu dhaliyay gooshiisa Champions League. Sidoo kale Juventus iyadana way badisay 3-2 ay ku badisay, inkastoo oo goosha looga hormaray. Marka Juventus way adkaysay, maysan noqonin. caawa tiimada albaabku xiran ee qolka ku ooyaya sida Real Madrid
iyo Atletico Madrid iyo sidoo kale Bayern Munich kooxaha lagu tashanay caawa in ay jabaan goolal ay dhiibaan. Sidoo kale Atletico Madrid iyadana waxaa kala ku dhacay waxay tahay musiibo 4 gool ayaa loo dhiibay Atletico Madrid xil xitaa Di Maria uu kusoo noqday Spanish macnaha Atletico Madrid wuu ka yaabsan jiray marka gooshiisa isagana waa uu dhibtay caawa. sidoo kalena Liverpool ayaasan ka maqnaynin. Liverpool oo Anfield iyadana ku xasuuqday kooxdaas. Marka Liverpool waxay ku badisay 2-0 oo McAllister iyo Mohamed Salah u dhaliyay. Mohamed Salah oo gooshiisa isagana ku tuurtay. Bologna waxay u aheeday habeen mugdi oo dhanka Anfield.